xildhibaanka golaha deegaanka ee waaxda iftiin ahna afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka ismaamulkan mudane mustafa cabdirashiid ayaa ka hadlay mashruuca biyaha ee maramtu oo loogu talagalay waaxyaha waaberi ee iftiin oo uu daaha ka qaaday barasaabka xukuumadda mudane nadiif jaamac aadan kadib xaflad ka dhacday haanta biyaha ee xaafadda ku naso ee waaxda waaberi. Mr Mustafa oo la hadlay idaacadda iftiin FM ayaa sheegay in barasaab jaamac uu ku degdegay daahfurka mashruucan oo aan kaamil noqon, marar badanna uu kala taliyay yeelkeeda uu ka dhagaadeegay tala jeedinta uu siiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdiqani aad iyo aad baa u mahadsantahay. Maxaan rabay inaan wax yar aan ka taabto mashruucii uu daahfuray governaga. Mashruucaas maxaa la yidhahdaa Maramtu Water Project. Waagi Cali Ballah yaa la bilaabay. Cali Bino uu ahaa MP, uu ahaa governaga. Laakiin markii electionka la gaarayay shaqadii oo socota la gaaray, governorka markuu soo galay muxuu dhahay dadkii shaqada wada aniga lama shaqayn kari, shaqada waa in dib loo soo cusboonaysiyo. Marka waxaan rabaa nimanka inay meesha ka baxaan. Marka nimankii meesha laga saaray, shaqadii waa la qabtay, laakiin ilaa hadda shaqadii qabiya ayay tahay. Weliba ani iftiin umaan ka hadlaya dhanka iftiin. Hadda shaqadan waxaa loogu talagalay inay biyo siiso. Projecta maxaa loogu talagalay biyo inay siiso waa beri iyo meesha la yiraahdo iftiin. Marka ani iftiin umaan ka hadli. Bishii la soo dhaafay buu damcay Nadiif inuu furo mashruucan. Anigana maxaan ku dhahay mashruucan lama furi karo, waayo mashruucan qabyu ahaa. Dadka biyihii way usoo dhawaadeen, laakiin biyihii ma cabbi hayaan. Maxaa dhahay piping system mal. Waxaan ku dhahay meesha niyo piping system la'aan baa jirta, biyihii lama cabbi karo walaalow. Ma furi kartid. Maxaa kaloo jira biyahan maxaa laga duray beer la yiraahdo Maramtu. Governorka sanad iyo 2 bilood muddo hadda laga joogo ayuu muxuu ka ballan qaaday, maadaama beertii laga dhex duray biyaha codsi ay u geysteen, ayuu ballan ka qaaday inuu sameynayo. Codsiga muxuu ahaa injinkoodii waa biyo ka qaaday daadkii maxaa la dhahaa biyihii roobkii mahigaankii ayaa ka qaaday oo la soo dhaafay. Marka inuu injin u geeyo ka ballan qaaday. sanad iyo 2 bilood baa laga joogaa. Ana naftigeyga muddo 6 bilood laga joogo yaa intii qayli meesha ay ka imaatay marna lagu xiraayay 6 bilood 7 bilood meelaha yaan aniga ballantii haddana cusboonaysi ilaan asaga ma aragtay ilahay cusboonaysi. Marka maalin hore bisha hadda la soo dhaafay 25 buu rabay biyaha inuu furmax ku yiri walaalow biyahan 2 shay oo aan la sameynin ba iftiin lagama furi karo. Biyahan lama furi karo. Midda koowaad maxaa waaye injinkii aad u ballan qaaday Maramtu meesha biyaha laga duray adonkeeni lama furi karo. Midda labaad maxaan dhahay biyahan boqolkiiba hadda iftiin maxaa cabbi hayaan, boqolkii markii la yiraahdo 10 baa cabbi hayaan. Sababtana waxaa waaye biyihii way jiraan pipe baan jirin. Marka waxaan ku yiri dadka war ilaa iyo 50 boqolkiiba 50 gaarsiiso ilaa iyo 60 gaarsii marka imawkaal biyo fur. Uu iska qayliyay. Anigana maxaan ku dhahay niyaho waxaan isku liidno maalin adigana governor waata inaan MCA baan maxaa la yiraahdaa shaqada aniga aan hayno maxaa weeye inaan dadkayga u doodo xaq baan u leeyahay. Mudanaha waaxda iftiin ee bartamaha magaalada Tangaarisa ayaa intaa ku daray in xaafado badan oo ku yaala waaxda iftiin ay biyo la'aan ka jirto, wuxuuna u sababeeyay in mashruucan oo kaamil noqon tiyo ay jirto intu bagalin aan lagu sameynin xaafadahaasi, taasi oo qayb ka ahayd qandaraaska mashruuca biyaha ee Maramtu. Cabdiqani mashruucan maxaa loogu talagalay biyo inuu siiyo beerta markii laga soo baxo beeraha webiga, markii laga soo baxo qaryada meesha degan ilaa iyo laamida. Haddana jidkan ring roadka inta maxaa la yiraahdaa Boolargi, Buulagem, Buulanuur inta biyo ma haystaan. Buulanuur biyo ma haysato, Boolargi biyo ma haysato, laguma xirinbo. Buulagemna wax 1% dhan ya biyaha. Dhanka kale Dheka Buuray, Ceel Gaduudow, Buularaxma, Sarmaan iyo Sambulka Kore waxaad u maraysaa isku jirkooda kulli boqolkiiba 10% anday gaaraan nasiib bay leeyihiin. Nadiif governorka waan u sheegay maxaan ku dhahay ciladan baa jirta, war paybiyaha dadka u xariiri, paybiyaha dadka sii biyihii maxaa lagu xiray leeman 20 sano biyo marin oo service lines oo qoladii Spencon la dhihi jiray ay sameeyeen. Leemasha kulli waa blocked, waa wax blocked iyo wax halaabay. War dadka kan u sameey marka ninkii uu iska soo boodi sawir buraano iska qaato, marka kadib shaqo mar rabo inuu ma aragtay hawsha ka dhigto wixii muxuu iska noqoni project ma aragtay aan suurta gelin. Anigana taasaan ka hortaagna. Maxaa dhahay mas'uuliin baan nahay, xaqana saaran. Anigana xaqa i saaran maxaa waaye inaan u doodo dadweynaha. Marka dadkii aan biyo cabaynin buu damcay inuu dhaho waan furi. Aniga had wixii loogu sacabayn Nadiif maba ka saybo, because dadkii way ooman yihiin, biyihina way u muuqdaan mana cabayaan. Waxay u baahan yihiin ninkii tukin jogosaan. Marka waxaan idhi arrintan oo ka fiirsanin oday baatay ka fiirso hadalkaygii muu qaadanin.
haddana wax kale u cad waaye ani wuxuu u ordayna ani ma kasay marka arintaasaa jirta cabdiqani. mar uu ka hadlay cabashada dadweynaha ee ka niyad jabay mashruucan oo ay sugayeen muddo sanado ah ayaa waxa uu sheegay in shacabka waaxda iftin ay xaq u leeyihiin in ay dibadbax sameeyaan ama qaadaan waddo kasta oo ay biyo ku heli karaan sida uu sheegay lagana doonayo in xukuumadda Gaarisa ay arrintaas wax ka qabato. waxay ku kaliftay dadweynaha marka inay soo baxaan oo ay bannaan baxaan oo xaqooda ay u bannaan baxaan. marka anaga codsigayga maxaa weeye waxa qabyaha ah ha dhameeyo Nadiif Jaamac governorka ha fariisto meel maskaxdiisa gadaal ha ugu noqdo waxa uu sameynayo khaladka ah ka dhex baxo ummadda service bay u baahan tahay meel walbay joogaan shaqadan shaqo wanaagsan waaye laakiin qabyo waaye had inta laisku haysto laisku hortaagan yahay waa un inuu qabyo yani war qabyada tir keli uma ma aragtay uma laisku hortaagan yahay marka ani waxay ila tahay raiftiin ani waxaan ka codsan wixii xaqiin u dooda anigana garab baan idinku garab baan idinku noqon xaq darra anagu ma soconno Nadiifna maxaan leeyahay qof mas'uul baa tahay muslim baa tahay cadaaladda ka shaqeynaya garbaada maxaa saaran raqiib iyo catiid malaa'igna way kugu hareereysan tahay mas'uul baadna tahay dadka si xaqe ugu adeeg xaqeena anagoo biyo nala siinin anaga xaqeena maanu doodaynaa oo biyaha ah xaqaasna aniga number 1 waxa uu doodahayo biyahaasna anaga ma baryayno sida ummadda kale ay maaragtu cabayso baan u cabayna haddaan nahay iftiin. ugu dambeyn waxa ugu baaqay barasabka Gaarisa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu kaga shaqeeyo sidii shacabka waaxda iftiin ee aan haysan biyaha ay biyo ku heli lahaayeen taasi oo ah xaq dastuuriga ah oo ay ku leeyihiin xukuumadda Gaarisa arrintaasina ay gorgortan gali karin waxa uuna meesha ka saaray in arrintan si kale loo siyaasadeeyo isagoo sheegay in shacabka waaxyaha iftin iyo waabari ay yihiin dad walaalo ah loona baahan yahay in si siman ay biyo u helaan maadaama mashruucan hal mar la wada bilaabay. labada ballan oo uu qaaday meesha biyaha laga duray oo beerta maramto oo uu ka qaaday ballantaas oo inuu engine u geeyo engine-ka hage dadkan biyo la'aanta ana biyaha ha u xiro inta kale waa wax kale oo jiro male meesha marka buleeftiin maanta way banaanbixahayaan banaanbaxana xaq ay u leeyihiin banaanbaxa waa xaq qof walba oo Kenyan oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay maxaa lagu sheegay sharciga waa nidaam dadka ay codsigooda ku gudbiyaan wax xumaan ay leedahay male anigana waan taageersanahay marka maxaana loola jeedaa dadka dhibaatooyinka un ay qabaan inay un ma aragtay wax